اللهم أنت السلام ومنك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waa darsigeennii afraad iyo kalgacaylka rabbaaniga ah. marka insha allahu tacaala sidii aan niigu wada qisadii ugu horreysay qisooyin baa insha allahu tacaala la xidhiiri doona haddii ilaahay nafta noo daayo kalgacaylka rabbaaniga ah. waxaa idin wada insha allahu tacaala qisaa jirtay oo aan dhegaystay wiil dhakhtar ah ilaahay khayr siiye oo qalin jabiyey kadibna wuxuu ku daray dhakhtarnimadii wuxuu ku daray inuu ku takhasusay indhaha maxaan ku leedahay qale weey indhuhu qala markaa kadib markuu qaal jaamacadda ka dhammaystay shaqo uu bilaabay waa halkii la rabay ee uu awood lahaaday awooddii uu sheegay nabigeena suuban salawaatu rabbi wa salaamu calayh wiil yaa macshar shabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj war hooy dhalinyaro ninkii maxaan ku leedahay awood loo ha guursado waman lam yastatic ninkaan awood lahayna calayhi bisoom soonkaas oo fa inna lahu jaa waxa weeye gaashaan buu noqonaya indhihiisa xafidaya shahwadiisana hoos buu dejinay aw kama qaal calayhi salaatu wasalaam. halkan markaa wiilkaasi dhalinyarta wiilkaasi doctorka ah ee ku takhasusay indhaha qalideeda ayaa markuu qalin jabiyey kadib ayaa waxa uu habeen walba uu kici jiray ilaahay bari jiray wuxuuna raadinayay qof mu'minad ah oo ilaahay ka cabsato oo qaab uu isagu u rabo ayuu raadinayay oo ilaahay ay qaabka ay iyadu maxaan ku leedahay ay oo ilaahay ugu dhaweysay isagana ilaahay ugu dhaweyso isaguna ilaahay u dhawaado ayaduna ay noqoto qofkii ku caawin lahayd saan oran jiray maxaan ku leedahay guurku waa taageero la isku taageero weey oo ilaahay loogu dhawaado. kadib ninkan habeen walba doctorka uu kici jiray habeen walba ilaahay bari jiray sidoo ilaahay u bariyay ba hadan waqtigiiba hatta ilaa ay 5 sano wuxuu ku jiray raadis qaabkii iyo gabadhii iyo noocii uu raadinayay ee ilaahay u dhaweyn lahayd ayuu lahaa. marka maalimaha kamida waxa dhacday rixlad oo wadanada Asia oo wadannada muslimiinta Asia in dhaqaatiir loo qaaday oo dhaqaatiir oo ilaahay dartii ay indhaha dadka u qalayeen indhaha maxaan ku leedahay ay u daweynayeen dad meelaha maxaan ku leedahay kaambiyada iyo meelahaas sidoo uu socday maalimaha kamida isagoo baaristii ku jira isagoo dadkii daweyntii ku jira iyo maxaan ku leedahay ilaajkii iyo qalistii ku jira ayaa waxa uu la kulmay gabadhaas oo indhala markaas laakiin gabadh waxay ahayd xaafid alquraan ah oo ilaahay xaafiday quraankiisa xafiday markaas wuxuu yiri walaalkeed baana la socdo oo uu keenay meeshii lagu qalayay maxaan ku leedahay indhaha dadka loogu qalayay mar alla markii uu keenay ayaa wuxuu yiri wuxuu arkay gabadhii loo soo galiyay ee doorkeedii buu noqday oo maxaan ku leedahay attendance markii ay soo gashay walaalkeed baa la socdo dhakhtarkii markuu u dhawaaday ayaa wuxuu arkay gabadhiyo ka yaxyaxsan oo cabsanaysa markaas wuxuu yiri walaalkeed buu ku yiri war maxaa helay gabadhan maxay la baqaysaa ma waxay ka baqaysaa qalista la qalayo markaas yiri maya qalista la qalayo lagama baqaysay xalay oo dhan walwal ma seexan buu yiri waxa kaliya ay ka cabsanaysa buu yiri waxa weeye inta marka la qalay ee maxaan ku la doorinayo macna la seexinayo ama maxaan ku koomada ay ku jirto waxay ka baqaysaa buu yiri inay koomadu ay ku dheeraato ay muddo dheer ku noqoto laana waxay leedahay waxa weeye habeen walba way kacdaa oo ilaahay jalla wa ala quraankiisa akhritaa markaas wuxuu ku yiri ma inta baha markaas markuu u soo dhawaaday ay maqashay inuu weydiinayo ayay gabadhii waxay bilowday inay tiraado walaalow as'aluka billah ilaahay baan kugu dhaarinaya horta muslim baad tahay markaas ay tahay muslim baan markaas waxa ku tiri ilaahay baan kugu dhaariyay waxa tiri in ma karaysaa bay ku tiri in aanan ilay doorin bimaana in aanan lay suuxino suuxidaasi adina lay suuxin indhaha ma lay qari karaa markaas yiri waa hadal mustaxiil ah waxaan dhici karin in lagu qalo oo aan indhaha inaan lagu suuxino indhaha lagu qalo waa waxaan dhici karin laakiin wuxuu yiri ballan baan ka qaadaya ballankan ka qaaday wuxuu yiri in 6 saacadood wax ka badan ma qaadanayso suuxida aad suuxaysid markaas wuxuu ku yiri hadda markaa wuxuu rabay inuu maxaan ku leeyahay naxdinta uu ka bixiyo naxdinta uu rabay inuu maxaan ku leeyahay ka saaro ayaa markaas wuxuu ku yiri ay quraanka ma xafidsanta imsaad quraanka xafidsanta
markaasay tiri alxamdulilah qur-aankoo mukamal ah kaamil ah ayaan xafidsanay markaasay ilaah baan ku dhaartay bay tiri lowlaa laba arrimood darteed haddayna jirin buu yidhi ayay tiri markaas waxaa ku tiri qur-aanka dhan baan xafidsanay wiigiina soddonka jus oo dhan waan dhammeeyaa bay tiri wiigiina halkii wiig yacni 4 jeer baa maxaan ku dhahaa bishii ay dhammaysaa inta xaajada inta qadiyada ku jirto maahayn aad way akhri kartaa bay leeyihin culamadu qaarkood calaa kulli xaal baabka ma galayn laakiin intaasoo jeer bay qur-aanka xafidaa bidaat 3 jeer wax ka badan maxaa markaas wuxuu ku yidhi qur-aankan xafidaa markaas waxay ku tiri ilaah baan ku dhaariyey ilaah baan ku dhaartay bay tiri waxay tiri haddii aan laba arrimood ayna igu kalifaynin inaan maxaan ku idhaahdaay in aan indhahayga la ii furo ama la ii qalo haddayna igu kalifayn buu yidhi weligeedba sidaydaa baan iska ahaan lahaa oo ilaahay ugu samri lahaa aad iyo aad buu la yaabay ninkii dhakhtarka maxay noqotay wuxuu baryi jiray ilaahay baryi jiray uu ducaysan jiray ayaa waxa weeye meel bay ka soo gashay ilaahayna wuxuu ka bari jiray qof taqiyad oo naqiyad ah oo ilaahay ka baqda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqda ayuu raadinayay maxaa dhacday waxay tihi hadda labada arrimood haddii aanan qur-aanka ahayn xafidaadiisa ee aan maxaan ku idhahdaay aan habeen iyo dharaar maalin walba aanan akhriyin ama ayna hooyaday arrinka labaadna ayna ahayn bay yidhi waxaan rabaa indhaha haddii la ii furo bay tihi inaan hooyada iyo aabbahay u khidmayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar mar alla markaas uu arkay ninkii dhakhtarkaa ayaa qalbigiisa waxa ku dhacday maxabbadii iyo jaceylkii ee la rabay inuu u jeclaado ilaahay dartii maadaama ay qoftani ilaahay u dhowdahay talabaadna ay haddana ku darsatay in ay maxaan ku idhahdaayey inay hooyadeed iyo aabbaheeda rabto inay baari noqoto allahu akbar labadaas marka arkay buu wuxuu ku yidhi walaalkeed buu ku yidhi maxaa ka wanaagsan buu yidhi maxaa ka wanaagsan buu yidhi qof ama gabadh ilaahay jalla wacalaa sidaas ugu dhow oo sidaas u wanaagsan wiilkii walaalkii aad wuu dhoola caddeeyey mar alla markuu dhoola caddeeyey buu ku yidhi hadda markaas wuxuu galay inuu gabadhii in maxaan ku idhahdaa la suuxiyo oo operationkii isagaa galay isagu markuu galayna wuxuu alxamdulilah uu ka saaray baa la yidhi biyaha cad ayaa indhaheeda markuu qalay kadib uu ka bixiyey kadibna alxamdulilah uu ku aad iyo aad buu ugu guulaystay operationkii mar alle markuu ku guulaystay operationkii buu usoo noqday walaalkeed wuxuu ku yidhi alxamdulilah buu ilaah baa fadligaas kale waan ku guulaystay operationkii walaashaa qalideedii marka laakiin waxaan aad iyo aad aan u jeclaaday buu yidhi waxaan rabaa buu yidhi in lay abaalgudo abaalgudkuna wuxuu noqonayaa buu yidhi hal koob oo shaaha oon gurigiina ku cabo allahu akbar wuxuu gadan leeyahay ay bimacnaa wuxuu ku soo kici jiray habeenkii oo ilaahay u baryi jiray oo ilaahay jalla wacalaa uu u baryi jiray habeen walba u soo kici jiray oo 5 sano u raadinayay ilaahay jalla wacalaa wuxuu siiyey kanz waxaa la yidhaahdaa treasure af soomaali ma aqaanay ala kulli xaal kanzigii uu raadinayay ayaa ilaahay jalla wacalaa hoostiisa soo gelay waxaa meesha ku jirta ilaahay jalla wacalaa ninkii ugu dhawaada ilaahay ducada ee ilaahay baryaa wax alla wuxuu rabo ilaahay waa ka siiya marka waxaa meesha nooga cad in ilaahay jalla wacalaa haddii uu jacaylna hayo haddii aan rabno inaan helo qof ilaahay noogu talagalay oo na wanaajiya habeenkii in la soo kaco ilaahay la baryo halkaa markaa wuxuu yidhi waxa keliya taad ugu abaalgudi kartaan buu yidhi inaad koob shaaha aan xaafadiina ku cabo markaasuu yidhi wallahi wax kama qabo wiilkii walaalkeeda xaafaddii baa loogu yeedhay xaafaddii markuu loogu yeedhay buu yidhi waxaan rabay buu yidhi markii uu shaaha cabay kadib wuxuu yidhi nin ilaahay wax siiyeyna waan ahay muddo dhanna 5 sano dhanna waxaan raadis ku jiray buu yidhi inaan treasure inaan helo ilaahay jalla wacalaa waxaan ka baryayey ilaahay waxaan ka baryayna maanta wuxuu ilaahay ka dhigay buu yidhi inuu gurigiinni kanzigaas aan raadinayo inuu gurigiina ku jiro maxaa dhacday buu yidhi maanta wuxuu yidhi waxaan aniga igu soo dhacday buu yidhi waxaad rabtaan weydiista waxaad rabtaan aniga si aad igu bedeshaan kanzigaas ee ilaahay ka baqaysaa ee aabbaheed iyo hooyadeed nolosha dhan labadaas shay ilaahay u dhawaanshadiisa iyo aabbaheed iyo hooyadeed oo baari u noqoto darteed u socota qoftaasaan rabaa inaan idinka qaato oo idinku bedelo wax alla waxaad rabtaan kadibna markay arkeen aabbihii iyo hooyadii ay arkeen xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qofkan korkiisa ka muuqata maxayna tahay xadiidka nabiga
حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحيري إذا أتاكم من ترضون دينه حدي وديني ما دو قف الدين تيسات كهشين أي عبادة ديس إله كدوان تيسات كهشين إيوه وخلقه يا أخلاق ديسة سدا أو دور سنة وشنت سنة ضد وأراديني سئو إله جل وعلا وجهله قف دور سنة أو إلهي ما أنت راديني حضر إلهك الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم الحمد لله مركا واحد عضي مركا مربى هدي ويديني ما دو نين هذا أخلاق دي سكاه الشام بي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أنا كاه الشام بي دين تيسا هدي ويديني ما دو وقبل إذا كسر دونه فزوجوه لسان وإلا هداد لسي ويدان بي هو إيجينا قفكني العقب ليه هو إيجينا قفكني عدو كل شيء هو إيجينا قفكني من العقب محن كل هداي مشغلان بهيس هو إيجينا بالله بدأسون هدي أتكاه الشام قفكاس إلهي بربو ودوي هاي إلهي وحو قد دوانيا إلهي با وح بحيه إلهي با وح بحيه وحسينيه دين تيسا إي أخلاق ديسا إي وناقيس هدي أدركتان قبرنا بسيه مركز سيدي بالغو سيه قبردين أو إلهي جل وعلا وكو أسطري reerkiina uu ku nooleeyay reerkiina uu ugu dhawaadeen isagana ilaahay jalla wa ala ay ugu dhaweysay qofta maxaan ku ilaahay mu'minada ee ilaahay ka baqaysa ee ilaahay u dhow waxa weey xagga ilaahay u dhowdahay lidalik waa in laga soo dhawaada oo loo raadiya qoftii ilaahay ku dhaweyn lahayd laana ilaahay hadaad u dhawaatid wax walba aad heshay laakiin hadaad ilaahay ka dheeraatid wax walba ayaa ku seegay marka ilaahay darsiga dambe aan ka soo gaarina ee ku saabsan kalgacaylka rabbaaniga ah iga warsuga insha Allah ta'ala إلهنا جل وعلا وحن إلهي كبرنا إلهي سبحانه وتعالى نوافجيه توفيق ودن إلهي كل ما شذي سين إلهي سبحانه وتعالى ونصيه إلى أن كجارين درسك صوص على وكالجعيلك ربانك يقابتي أفراد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.